Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada saaxiibayaal qaybtii labaad ee dhul-daaqsimeedka Okavango Delta, Botswana. Cagaarka badan ee Delta ma ahan natiijada cimilada qoyan, balse waa dhul biyood ku yaala meel daris la ah lama degaan oo mane ah. qiyaastii 3 meelood meel biyo qabatinada Botswana. Celceliska roobka sanadlaha ah waa 450 milimitir. Badankoodna waxay da'aan inta u dhaxaysa December iyo bisha Maarso, iyagoo u da'aya qaab duufaano culus oo galabnimo ah. December ilaa Febraayo waa bilo roobaad kulul oo maalintii heerkulku gaarayo 40 degrees Celsius, habeen diiran iyo heerkul qoyan oo isbeddelaya inta u dhaxaysa 50 ilaa 80 boqolkiiba. Laga bilaabo Maarso ilaa bisha May, heerkulku hoos ayuu u dhacaa iyadoo ugu badnaan 30 digrii ay tahay maalinta, halka habeenku yahay intaas ka qabow. roobabku si dhaqso ah ay u engegaan ama u qalalaan marka la gaaro bilaha Juun ilaa Agoosto. heerkulka maalintii ee waqtigan sanadka waa mid khafiif ah, sidoo kalena diiran. laakiin heerkulku aad buu hoos ugu dhacaa kadib qorraxdhaca dhulka Botswana. isla markaana habeenku waa mid si la yaab leh u qaboojin kara dhulka Delta, iyadoona heerkulku aad ugu dhowaado heerka barafubidda. inta u dhaxaysa September ilaa November waxaa mar kale siyaada heerkulka iyo cadaadiska jawiga, maadaama uu soo dhow yahay xilli roobaadka Okavango Delta. October waa bisha ugu dhibka badan dadka soo boqodayaasha waddanka Botswana. heerkulka maalintiina wuxuu kor u dhaafaa ilaa 40 digrii. xayawaanaadka Delta. dhulka Okavango Delta waa guriga joogtada ee noocyada kala duwan ee duurjoogta Botswana, kuwaasoo soo jiita dalxiisayaal aad u fara badan. dhammaan 5 xayawaan ee waaweyn, libaaxa, shabeelka, geriga Afrika, maroodiga duurka Afrika iyo wiisha ayaa laga helaa dhul-daaqsimeedka Okavango Delta. noocyada kala duwan ee xayawaanada laga helo Okavango waxaa ka mid ah daanyeerka Afrika, haramacadka, deerada, dameer farowga iyo kumanaan kale oo xayawaano kala duwan ah. goobtan ayaa sidoo kale martigelisa in ka badan 400 oo nooc oo shimbiro ah oo ay ku jiraan gorgorka iyo goronyada. meelaha ugu muhiimsan ee shimbiraha laga helo waa deegaanada isku dhafan sida Bandahal, Delta xilliyeedka iyo qaybaha Murami Game Reserve ee u dhow biyaha webiga Okavango. ilaa 2005 aaggan la ilaaliyo waxaa loo tixgeliyey unugga ilaalinta libaaxyada Afrika oo ay weheliso beerta qaranka. isu imaatinka yaryar ee Lejwe Antelopes Okavango Delta. naasleyda ugu badan waa biciidka loo yaqaano Lejwe, iyadoona la qiyaasiyo in 100,000 oo biciidkan ah ku nool yihiin aagga webiga Okavango. Lejwe xooga ayuu ka wen yahay nooca kale ee Impala, kaas oo leh qoobab dhaadheer iyo lugu biyaha qabatima, taasoo awood u siinaysa dhaqdhaqaaq degdeg ah iyo la qabsiga biyaha. Lejwe wuxuu daaqaa dhirta biyaha ku jirta sida waterbagga. labka kaliya ayaa geesa leh halka kan dhediga aanay lahayn. kalluunka Delta. Okavango waxay hoy u tahay 71 nooc oo kalluun ah oo ay ku jiraan noocyada kala duwan ee kalluun webiyeedka. cabirada kalluunku waxay u dhaxayaan 1.4 mitir ilaa 3.2 mitir ugu badnaan. nooc isku mid ah ayaa laga helaa webiga Zambezi, taas oo muujinaysa xiriirka taariikhiga ee ka dhaxeeya
labada nidaam ee webiyada Okavango iyo Zambezi. Okavango Delta waxay u tahay in ka badan 1,000 nooc oo dhir ah. Dhirtan waxaa ka mid ah cypresska, waxayna si fiican ugu koraan biyaha qunyar socodka ee qotada dheer. waxayna caan ku yihiin dhinacyada kanaalada webiyada, jasiiradaha iyo cirifyada dhulweynaha ka sarreeya, dhul daaqsimeedka daadadku ka soo buuxsameen. noocyadani waxay ku yaalaan hadba siday ula qabsadaan biyaha. tusaale ahaan, dhirta Phylloxera waxay u baahan tahay biyo yar, waxaana laga helaa meelaha ugu sarreeya ee biyo-xireennada sanadlaha ah. sidoo kalena waxay ku badan tahay jasiiradaha qallalan ee xilliyeedka. dhulweynaha Delta waxaa lagu gartaa maasiyoosi ka kooban dhul daaqsimeed iyo isku raran kaymo ah oo ka kooban geedo yaryar iyo geedo hoosaadyo. asal ahaan dhirtu waxay si muuqata ugu engegan tahay dhiiqada webiga Okavango. culayska webiga ee Delta wuxuu ka kooban yahay gebi ahaan ciid, sababtoo ah biyaha nadiifka ee Okavango waxaa ku jira dhoobo. dhirtuna waxay ka baxdaa dhinacyada webiyada. isu muuqashada kaynta iyo webiga ayaa samaysa muuqaal u eg jasiirad. sababo la xiriira fidsanaanta qulqulka iyo ciidda weyn ee ka soo qulqulaysa webiga Okavango. sagxadda Delta ayaa si tartiib tartiiba u sii koraysa, halka ay kanaalada maanta joogaan jasiirada ay ahaan doonaan berito. kadibna kanaalo cusub ayaa laga yaabaa inay ka samaysmaan jasiiradaha jira. dadka Okavango Delta waxay ka kooban yihiin 5 qowmiyadood. mid kastana wuxuu leeyahay aqoonsi qowmiyadeed iyo luqad u gaar ah. qowmiyadaha inta badan dega agagaarka webiga waxaa ka mid ah Bakusha, Guafa iyo Tanagua. inta badan dadka dega aagga webiga Okavango waa kuwo u badan ugaarsato, kuwaas oo xiiseeya ugaarsiga iyo qaraabka dhulka kaymaha Okavango Delta, waddanka Botswana, qaaradda Afrika.